lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka bariga Afrika ahna xildhibaan ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. wariyayna magaaladaasi Cabdicasiis Garyaqaan ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Cabdi Xukun oo kamid ah baarlamaanka dawladda dhexe ee Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada Jubbooyinka ayaa wuxuu markii labaad ku guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka bariga Afrika. haddaba munaasabada kala duwan oo lagu hambalyeeyo Cabdi Xukun ayaa waxay ka qabsoomeen gudaha magaalada Kismaayo. waa kuwan qaar kamid ah salaadiinta iyo dhalinyarada deegaanada Jubbaland oo ugu hambalyeeyay xilka uu qabtay mas'uulkani. waxaanu hambalyeeynaa Cabdi Xukun oo leeyahay Cabdilcasiis Cabdullaahi Maxamed marka oo xildhibaanada kamida dawladda dhexe marka haddana ku guuleystay xildhibaanka maaragtay bariga Afrika. Cabdi Xukun xildhibaan Cabdi Xukun Maxamed waxaan ugu hambalyeeynaa guuleyska uu ku guuleystay baarlamaanka bariga Afrika soo awaltan ahaa markii koobaad hore ku guuleystay markii labaad hadda ku guuleystay odayaasha dhaqanka ah. waxaan u hambaleynaynaa Cabdicasiis Xukun oo baarlamaanka Soomaaliya federaalka kamid ah kana galay gobolka Jubbooyinka ama magaalada Kismaayo haddana ku guuleystay bariga Afrika baarlamaankeeda gudoomiye u noqday. halka waxaan hambalyo uga diraynaa xildhibaan Cabdi Xukun oo kamid ah xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland ahna xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka oo ku guuleystay xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka geeska Afrika. waxaan maanta halkan isugu nimid oo u hambalyeeynaa hambalyo iyo bogaadin soo jeedinaynaa xildhibaan mudane Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Cabdi Xukun oo mar labaad ku guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka East Africa. waxaan leenahay xildhibaanka guuleyso mar labaad iyo mar saddexaadba. xildhibaanka sidaan u ognahay wuxuu ka yimid ama ka socda ama laga soo doortay wuxuu ahaa baarlamaankii federaalka u mathalayay Jubbooyinka Jubbaland. anagoo ku hadlayo odayaasha dhaqanka Jubbooyinka waxaan u hambalyeynayaa xildhibaan Cabdi Xukun oo ahay xildhibaan laga soo doortay maamulka Jubbaland laga soo doortay أنا حلبان دولة فدرال كا وكوجولستي حلبانada Afrika u noqday gudoomiye markii labaad aad iyo aad baan xilbaan ku soo dhaweynaa waa ku taageeraynaa howsha waa ugu duceynaynaa waxaan leenahay ilaahay howsha aad ku guuleysatay ha kugu garab gala. wasiirka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dawlad goboleedka Jubbaland Fariid Jaamac Suleymaan ayaa dhankiisa hambalyo u diray Cabdicasiis Cabdullaahi Xukun. halkan waxaan uga tahniyadeynayaa xildhibaan Cabdi Xukun oo ahaa xildhibaanadii ka aaday Jubbaland federaalka kaasoo aad qaali noogu ah. waxaan ugu tahniyadeynayaa si kal iyo laab ah guusha uu ku guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka bariga Afrika oo ah markii labaad ee hawsha ku guuleysto. Cabdi Xukun waxaan ku leenahay hambalyo Allah kugu guuleeyo. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV magaalada Kismaayo.